baarlamaanka ka sharafta leh Puntland meediada golaha wasiirada halkan fadhiya iyo dhammaan dadka halkan jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdiqadar Faarax Shaaciye wasiirka wasaaradda dibadhiska horumarinta iyo maalgashiga Puntland haddaan soo koobo taariikh nololeedkayga waxaan ku dhashay meel u jirta 30 kiiloomitir magaalada Galdogob ee gobolka Mudug waxbarashadayda hoose iyo dhexe waxaan ku bartay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose dugsiga sare waxaan ka baxay dugsiga badda ee ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir jaamacadda waxaan kaga baxay magaalada Atlanta gobolka Georgia ee United States of America anigoo bartay electrical engineering xirfadayda shaqo intii u dhaxaysay sanadkii 84 ilaa 1986 waxaan u shaqeeyay wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliya anigoo ahaa sargaal wada markab una ahaana second officer una dalacay chief officer intii u dhaxaysay sanadkii 1993 ilaa 1995 waxaan u shaqeeyay shirkad Mareykan ah oo la yiraahdo Arthur Anderson anigoo ahaa aqoonyahan technology-ga system engineer intii u dhaxaysay sanadkii 1996 ilaa 99 waxaan u shaqeeyay bangi weyn oo Mareykan ah oo la yiraahdo Chase Manhattan Bank anigoo ahaa maamule xarunta lagu kaydiyo technology-ga data center manager intii u dhaxaysay sanadkii 1999 ilaa 2007 waxaan u shaqeynayay shirkad weyn oo Mareykan ah oo la yiraahdo KPMG anigoo ahaa technology auditor intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2017 waxaan ahaa ganacsiyo kala duwan ku leh meelo kala duwan oo adduunka ah sida Soomaaliya America Imaaraadka Carabta iyo dalka Kenya intaas waa taariikh nololeedkaygii iyo xirfadaydii aqooneed intaa kadib baarlamaanka sharafta leh Puntland waxaan ka codsanayaa anigoo wasaarad cusub la ii dhiibay shaqo badanna ii taalo inay xasaanada siiyaan ay fududeeyaan shaqada waa mahadsantihiin